السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada asxaabta qaaliga meel walba dunida ka joogtiin. halkaan naga dheehanaysiin waa Yanita Roxon TV. asxaabta meel walba dunida ka joogtiin horta waxaan iga codsanayaa walaalaha igu cusub inay channelka subscribe ii saaraan. walaalihii hore ila jooga waxaan leeyahay like-ta iyo share noo share karee barnaamijka si uu gaaro dad badan. asxaabay meel walba dunida ka joogtiin horta soo dhawaada. maanta waxaan ka hadli rabaa walaashayda hoodo karees iyo hooyadeeda. horta dumarka meel walba ay joogaan way ku dulman yihiin. horta dadkan maxaa lahayay ama askari ha noqdo ama booliis ha noqdo waxaa laga helaa dad xun iyo dad fiican intaba. marka dad xun wuu jiraa. waxaan ilaa markii dadka la qoraayo waa in horta practical siiyo qofka inuu qofka kale u dulqaadan karo. ayaga waxay sheeganayaan inay gabadhaas maxaa lahayay waan dhageystay booliiskii waxay leeyihiin gabadha way iswaashay markii baa la istaajiyey oo la dhahay kaalay aan ku wareysano naag way dharbaaxday ay dooni wax saas camal qof laaye way macnaha way la dagaashay ay dooni ku qaylisay. marka ma garanayo kuley meeshan ma bataagnin maaha. marka asxaabay horta Soomaaliya dhibka horta dumarka lagu hayo ani mar walba waxaan ka hadlaa dumarka soo aniga waxaan ahay dumar suma. marka waxaa leeyahay walaashayna hooda horta dhibaatada soo gaartay ilaahay ha u booga dhayaandhaya iyada iyo hooyadeed. aad ayaan ugu xunnahay haddaan dumarkii nahay. anigoo ku hadlayo codka dumarka aad baan ugu xumahay walaashayda hoodo karees. insha Allah wax walbana horta khayr ku dhamaanayaan. marka Soomaali dumarkii in horta la dhibaateeyo horta way iska saminkan way iska soo bataa in dumarkii mar walba la saarto la taadkareeyo oo macnaha mar walba uu yahay shaashada ama liifka u saaran yahay in dumarka mar walba dhibaato loo geysto. mid laga tuuro meel qar oo la kufsado, mid la dilo, mid si kale loo dhibaateeyo. dumarku waxay noqdeen dhibaatada kuwa ugu fudud way ugu nugul yihiin. soo dumarku waa dad jilicsan looguma talagalin inay dhibaatoodaan laakiin ilaaha u qadaray iyo burburka wadankeena ku dhacay oo ilaa haddana burbursan. marka ilaahay waxaan ka baryaynaa wadankeena inuu nabad nooga dhigo. Soomaali meel walba dunida ka joogtaana aad gacmaha isqabsataan oo dad isku tiirsan oo isjecel oo walaalo waxaa Soomaali way isnacday isma rabto saas isku nacday. marka naceebka tirada badnaa ayaa keenay. marka nala dhageysta hoodo waxay leedahay. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ugu dhacday arrin aad u cajiib ah oo runtii aanu kala kulannay ciidamada booliska Soomaaliland qaasatan kuwa Hargeysa saldhigga Qurac Dheer. maalintii Jimcihii ayaan anigoo inan dhaawaca sida oo u raba dhaawac muujin si aan referta ugaga qaado saldhiggaas oo ay arrintaasi qusaysay oo xaafadiisa ka dhacday. ayay askartii gaarku igu yidhaahdeen gaariga baarkinka dhig. halkii hore dhigay baan ka qaado halkii igu yidhaahdeen dhig baan dhigay. inaan yar baa igu soo dhaqaaqay oo ciidanka ka mid oo kuwii gaarka ku jiraya kuwii kalena meesha fadhiyeen. marka askarigii igu soo dhaqaaqay baa igu yidhi waad kibirsantahay taada yar waan ku aqaanaayo. dabeetana waa maxay kibirka malcamada la igu ka keenay si fiican ilaahda soo gaariga imada ran halka ka dhaqaajiyo halka dhig arkina maan dhig maxaad kala darta miya kibraniyad baa tahay deegar darra cadaan oo aan miyana kulahayn haystaagin miyana warwaa qof dhaawacaan sidee miyana saldhigga baarinkiisa inaan halkan loo istaagin looma istaagin ka tala hay halka ugu tiriimka istaagma istaag ha maxaa waad edab daran tahay war hay caayna diga edab daranay looxan day xijaabkii oo soo qabtay. markuu xijaabkii soo qabtayna waxaan ku yidhi war naga qaad faraa markan isagii ku jeestay uu isagina day igu dhigeen anagana is qabsanay. gabadh baa soo dhaqaaqday gabadh askariyada bugeedana ku yidhi noo kaxee
gabadhii baa iyaduna babiga ka siisay oo anigii iyadii isagii baa wada qabtay oo laba askari oo kalena way noo yimaadeen saddex askari iyo gabadhii uu u yeedhay oo markaa anigu gabadhii uun isqabsanay bay saddexdii askari dusha iga dileen hooyo gaadhigii iga dambeysay baa iga soo daba degtay hooyadii markii iga soo daba degtay waarna see leedi miyaad dilaysaan tidhi iyadina waa laygu soo daray oo iyadina saddex kala qaabishay hooyina saddexdii askari baa halkii horteyda ku dilay hooyadii bay xanuunsanaysaa li habeen baan dhakhtar ka soo sukiin dhakhtar ka keen anagii halkii baan lagu laayay weliba intana la jiiday oo dhulkana la jiiday oo waxaasi dhulkii ciid yihiin ayaa jiidniinkiina lagu geliyey gudaha markiina la geliyey gudaha hore markiina la geliyey ayaa weliba naloogu daray in maxaan ku dhahday obiga dhexdiisana lagu garaaco anagu de warka maanan hayna nin baa markaa lahaa waar ka daaye taliyaha saldhigu sidaan markii dambe ku warheli doono xanuun buu ku maqan yahay baa leeyahay xanuunsanaya taliye ku xigeenkii weeyaan ninkan la leeyay ka daaya ninkan la ka daaya la maqli waayay 6 askari iyo gabadhii ay u yeedheen 7 baa na jilciyay aniga hooyadeena la jiidayo oo marina halka xijaabadan xidhnaan laga dhigo timina la jiidayo ayaa gudaha hore la geliyay oo biga markii la geliyay feerjirbiye waxaana lagu qaraacay gacan ciidan baana martay askartuna dadka way iskugu tagaa inta waxa noo dheeray gacanta ciidanka in ku dhacday waxa noo dheeray inta maxaa la yiraahdaa garka saa u qabteen hooyada gidaarka saa ugu dhufteen oo sida ragga u feerfeeran ilaa imkana nabaradii ku yaalaan sawiradoodina aan hayo imka waxa lagu lamaqayahay dhakhtarka alxayaat socodkan gurigayga timaadeen si iskaan loo soo mariyo waxa qabto ana kii markii meeshii laga kabiyo wixii oo dib marka hore banaanka laga soo dhacay bay soo xareysteen telefoonka dhulka ga dhacayna intii dhaawac ahaydeen wadnii lafteedii ayaa qaatay gudihii hore la geeyay markii gudihii hore la geliyay waana la xiray maqsin baan lagu soo qufulay markii maqsinkana lagu soo qufulay ayay maxaan ku dhahdaayay inantii oo dhaawac muujintii ay siiyeen deeyo ay anagina naga xareeyeen oo aan cid meeshii ka qaadaa jirin ayaa anagii noo timidoo tiri yaan dee la hadlaa waa tan laydin xidhay waxaan anaa ku cidna la hadlina telefoonkayga hadaysay ii dhiib shabagaani ii soo istaagtay telefoonkii baan soo qabtay dee dad baan garaaco waxaan ku waxaan doonayaa nambarkii jananka inaan helo maadaama anigii hooyadayba dilnay waxaan jananka ugu eeranayay dee waxaan islahaa waa maaragtay xubintii ugu sareysay oo halkaas cadaalad ka heli kartaa waxaan ku war helay in generaal dabagala maqan yahay cidii markaa dee nambarada ka raadinayay waxaan weydiiyey in jirto cid kale oo aan la xidhiidhi karo oo ciidanka lagaga sii tagayo kasii mas-uula maadaama jananka jabuuti ku maqan yahay waxaa la ii sheegay in la yidhaahdo cabdi xasan qarbash inuu yahay kusimaha jananka inuu yahay janan ku-xigeenka isla markaa imikana uu sii yahay janan ku-xigeenkii iyo kusimihii jananka ciidanka waan garaacay oo iga qaban waayey inta idinta meesha taagnayd baan taga soo dira waxaan ku yidhi taliya waa gabadh sidaasa odagarays la yidhaahdo waan xidhannahay markaa telefoonka iga qabo waana nala dilay telefoonkiibuu igu soo celiyeyba waan ka qabta waxaan ku yidhi taliya waxaasaa nagu dhacay waana la dilay anigii hooyaday waxaan u soconayna waxa ahayd inaanu gabadha muujin u qaadno wixiiba laakiin waxa ka soo soka martay gacan ciidan baa nagu dhacday qol baana loo xidhay feerjil baana lagu garaacay si cadowtinimo leh oo ciidanku isgarab siinayo oo ciidamada booliskuna dadka way isugu tagaan qof kastoo shicibina taa uu ogyahay oo gacan ka siman xitaa haddaad go'do la isleeyahay yaanay shakhsi gaara loo raacin ayaana loo dilay anigii hooyadayba waxa dhacday marka ninkii sidii ugu sheegay wuxuu igu yidhi haye iminka lagu howlgelayaa aadna waad mahadsantahay adeer haye adeer adigaa mudan dee waxaan islahaaba cadaalad baad gaadhay oo madax meel ka sarraysa oo la salaaxaa ma jirtee haddaad janankii weyday dee janan ku-xigeenkii baad heshay janan ku-xigeenkii markii aanu la hadalnay uu yidhi cid baan idiin soo diray oo laidin howlgelaya waxaa noo yimid taliyaha qaybta bariga muse xasan kaahin la yidhaha intii aan anagu waxaanu qabnana la eegin oo aan nabarada iyada arkaysaan cidina u jeedsanin iyo kuwo kaloo jirka ah oo meelahana laga dilay dhabarka iyo caloosha u badan tahay si aan nabar muuqdo kalena loo ku arag oo dhaawac muujinta iyadana aanu hablaha dhakhaatiirta tusnay ku cadahay
ayaana loo soo diray markuu noo yimid taliyihii qaybta barigu hal shaqo quru qabtay waxaanu qabnayna lama weydiin si ay wax u dhaceenna lama weydiin halka shaqo quraahayda la qabtay waxa idin la ogaado sida aan ku helay telefoonka sidee gabadhan telefoonku heshay iyadoo saldhiga ku dhex jirta waana la baaray siday ahayd baan ugu sheegay waxaan ku taliye maadaama anagu ciidankan islaynay oo aanan ku eeran karin oo aanan waxba kala hadli karin annaguna marka hore aanu meesha cabashayinaan dad dhaawaca wax laga siiyo u keenay waxaan ana la xidhiidhay janankii markaan weyne jananku xigeenkii baan helay adigana sababtii iyo sifada lagula soo hadlay waa taas cid kale oo aan ishkateeyay ciidan meel u marin ma jirto nimankana aan jaray taliyahoodina waa kana uu taagna oo ka daayay buu lahaa isagaana amar diido ku sameeyay waa kana weydii waxaan ku yiri telefoonkaygii baa priority-ga la siiyay anagii dhamayna dhaawac ahayn iyo hooyadeedii meesha taalay iyo anagii hadlaynay iyo anagii soo cawday iyo anagii u xidhnaa nimankii la dilay laftoodii midna wax ka soo qaadna laguma sameeyay telefoonkii muhiimadda siiyay taliyay oo naga baxay subaxii markuu aagu bariyay intii uu inankii yaraay gaarka ku jiray cadaadisna saaray uu diiday in xataa cuntana loo keeno uu diiday xataa in maxaan ku dhahdaayay qof noo soo galo oo san wuxuu qabnana la eego waxna la weydiiyo baa subaxii markuu aagu bariyay dadkii isku wada yimaadeen family-gii iyo maxaa la yidhahdaayay niman kale oo aanu la hadlayo iyaguna ciidan ah waxa kale oo noo yimid ururka Soolja iyo madaxda telefishinka Horyaal iyo gudoomiyaha ururka Soolja iyaga laftoodana way arkayeen wixii meesha ka dhacay gudoomiyaha Soolja Sakariye iyo madaxda telefishinka Horyaal oo markii aan anagu ka tirsanaa markii noo yimaadeen ay maxaan ku dhahday inay yiraahdeen waan u galeynaa inanka ila gaarkii xitaa inta la qaybeedka loogu dhiibo telefoonka uu diiday annagana waxaan ugu dhacday gacantii ciidan waxaan u heshay gardarre garab oo waxaan qabnay baa in ciideegini telefoonkaygii annagii muwaadiniinta hayna ee soo cabanay ee islahayn madax meel ka tarita ma jirto janankii baad la hadashay oo maxaan ku dhahday telefoonkii naga qiimo badnaaday oo sidee wuxuu qabtaan oo loodan oo refertana la siinin subaxii baan ku dirirnay in refertana la siiyo oo anaguna waan dhaawacnay refertana la siiyo taliyinkii oo bigu maxaan ku dhahday ku refertooyinsi nabaradana habla askarana loo soo diroon eegay sidii baa refertooyinkiina lagu siiyay si dhakhtarna cidinamay geynana looma ogolaanin taliye ku xigeenkii ciidanku markaas dhiga joogay ee arkayay inay ka daaya wuxuu sameeyay si dambigeegii loo dambeebiso in saddex askari oo ciidanka kamid ah referta la siiyo oo anigii hooyadii oo markii aniga la dilay gaariga ka soo degtay si dambigeega loo dambeebiso ciidankii baa referto la siiyo dhakhtarkii loo diray waxay qabaan soo sheegaan oo hana la tuso annagu waxaanu qabnana cadayn baanu haysanaa markii aan siideyntii la taagan yahay subaxii la yiri maxaa la yiraahdaa idinkuna waa dagaalanteen iyaguna waa maxay waa kana aanu anagu deetana maadaama hooyadii saldhiga ku dhex matagaysay aan abaalba ku qabaynan maadaama kiniin aan loo soo dhaafin karno inankii yara wali gaarkii joogo talakicigeenku awoodna u yeelan waa inuu xitaa naga bedelo oo ama uu yiraahdo war waxa loo sido baadhuna u siidaa oo hooyadii saldhiga ku dhex matagaysa waxaan sidhiyaad seersani saldhiga anigu haday aniga ahaan leed kama baan soo baxeen inta jananka ciidamadu imanayo ee arintaydu dhinacuun u dhacayso laakiin hooyadii xanuunsan oo 6 ishaan dhakhtar ka soo sokoynay oo waraaqaheedii dhakhtarku gaariga noo saaran yihiin in maxaan ku dhahdaayay inta loo diiday in xabad kiniina dabada looga soo galiyo waxaan sidii aad seersan hooyada halka ugu dhimanin gacantaas imaniyo safiinkaas loo dilay oo cid gaar ah uma raacanaysidii dabeetana waxaan ogolaanay in la sii daayo bal si aan la maartay hooyada ila tacaalo markii la soo daayay ee aan maxaa la yiraahdaa qolkii ka soo baxnay ee ay ahayd inaan kadinka ka baxno ayana la ku qasbay inaan qorno nootaayo anagu dambi geystayaal nahay dib geystayaal ciidankuna dhibana ka yahay warqadii baa la soo qoray waana loo keenay waan akhriyay waxaan ku dhimaa anaga dhibanayaal ma waxa doonaysaa inaan maryaha iska bixiyo nabarada ugu dhufateen idin tuso masaas ay garabtaan niidan hablahan jirkeyga soo eegay iyo jirka hooyada eegay aaminaynin ma anaga dhib